soo dhoweyntii qiimaha lahayd ee nagu soo dhoweeyeen magaalada Kismaayo iyadoo aan safar yar u baxnay oo shaqo oo ahayd inaan bal dadka ay wax naga dhexeeyaan gaar ahaan beesha caalamka iyo hay'adaha ammaanka iyo kulligood inaan ka wada hadallo bal xaaladda meesha ay marayso iyo wixii maanta hore loo qaban karayo iyo meesha marxaladdeeda ay marayso waxaan safarkaas gaaban ku joogay oo ku tegay Nairobi isoo dhowr xaalo ahaa safiirada beesha caalamka oo aan kala hadlaynay xaaladda maanta aan marayno culayska shabaabku u hayo Soomaaliya siyaasadeedii meesha ay taagan tahay waddanku xagga uu socdo wada shaqayn la'aanta iyo wada socod la'aanta dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyadii kala go'naanshaha sistamkii dowladnimo ee Soomaaliya oo keeni karaya cawaaqib darro aan cidina mahadin doonin taasoo isleeyahay inta badan bulshada caalamku ama dhammaan siyaasiyiinta iyo beesha caalamka ee daneeya arrimaha Soomaaliya ay maanta arrin ku wada taagan Soomaaliya xaaladda ay marayso iyadoo moodo dowladdii federaalka ahayd inay gabtay waajibaadkii ay lahayd shaqadii u taallay isku wadistii waddanku ay maamulaan midka uu yahay waxa uu u baahan yahay in la aduudo meesha uu marayo isku wadistii wax badan ay meesha ka maqan tahay taasna aan filaya hadda inuu waqtigeedii soo dhammaaday oo dadku intaa ka badan hadda aan la sii xamili karayn in la wada hadlo Soomaalidu dhaqan horay lahayd wada hadal iyo geed bay lahayd iyo xaajo laakiin nin walba hadduu guri soo xidho dee ninna waxba macno kale uma samaynayo dowladdan saaxiibadan ee Kenya lafteeda waan wada hadal baan la galay laamaha ay khuseynaysa amnigu gaar ahaan arrintan dagaalka shabaabka iyo inaan qaadno howlgal aan muddo badan sheegayno sidaan hadda aan lagu jiri karayn inay muhiim tahay in operation la qaado shabaab aan la dagaalano iyadana aan isleeyahay waan isla qaadanay waana mid maanta la wada danaynayo saaxiibadeena guud ahaan nagala qayb gala barnaamijka howlgalku in howlgal degdega la sameeyo oo intaa ka badan hadda aan la fadhiyi karayn waxaa lagu mashquulay siyaasaddii waxaa gacanta ka baxoo la iloobay amnigii marka inaan u soo jeedsano taasaan prioritiga saaray intaa ka bacdi waxaan rabaa inaan idiin sheego reer Jubbaland xaalad adag iyo marxalad adag baynu soo marray insha Allah waan ka gudbinay hadda marxaladahaas waftiyo badan baa inoo iman doona waxaan kala hadli doonaana waxay tahay waddanka waxa maanta noo yaala Soomaaliya maanta waxay mashquul ku tahay siyaasad maxaan qabanaa iyo yaa noqonaya yaa ka noqonaya laakiin baahida maanta waddanka taallay waa mid ka weyn waxa maanta dadku ay ku hadaaqayaan iyo waxa siyaasiga Soomaaliga uu ka hadlay burburka iyo dhibaatada iyo kala maqnaanshaha waan hore u sheegay Soomaaliya kugusan iyo walaalo iyo isku wadis waa loo waxayn karaa ninna ma samayn karayo khaladaad kale ma waxayn karayo dowladdana waan u sheegnay inay ilaaliso shuruucda iyo dastuurka iyo waxa dadka u yaalay lagu wada dhaqmayo haddii qofku uu tiisa ilaalin waayo dee wixii kale dhibaato ay soo gaadhay waad garan kartaa waxa isagana ay saameyn ku yeelanayso shalay baa xadgudubyo la sameeyey wasiir baa la xidhay si aan sharci ahayn ciidan baa guddoomiyaal iyo maamul baa la qaaday meelahan munaasab ahayn baa la geeyey dowlado kale interfeer ku sameeyey wax kalaa lagu soo sheegay waa la qaaday maanta dowladdu markay guddoomiyaal degmo dowladii magacawday oo haykal dastuuriga ku magacaaban oo shaqeynaya intay qaada tiraahdo wax kale aan idiin samaynaynaa xaq ay u leedahay muxuu yahay maanta haddaan anigu sheegto waxyaalaha federaalku uu leeyahay oo idhaahda anaa iskale maanta anaa lacagta iyo iskale immigrationka anaa iskale xuduudaha anaa iskale maxaygan anaa leh haddaan maanta inta iyadu lahayd idhaahda anaa leh waa gardarro aan samaynayo waxaa dadka kala hagi karana waa sharciga iyo dastuurka haddii taa la waayo dee waxaa weeye nin waliba dhibaatadu inta ay u joogtay u gaadhaysa maanta waxaad ogtihiin burburka ay ka sameeyeen waxaan in badan uga wareegaynay arrinta gobolka Gada inaan u yara kaadino bal hal tartiib aan u xallino bal sidaan hala yeelo ilaa maanta ciidankii shabaabka la dagaalamayay iyo hubkii ay stateku u lahaa in badan oo ka mid maanta ay shabaab gacanta u galeen
kuwa ay ku ururinayaan baa dheereen ciidan baa la waxaynaya maanta ay shabaab soo sawirayaan oo ka heleen xoog cusub oo soo kordhay waa burbur siyaasadeed waa burbur amni waa burbur dhaqaale oo wadanka lala waxaynayo waxaan oran lahaa mas'uuliyiinta Soomaaliyeed ha u fakareen ha xusuusteen ha garteen wadankaani shalay waxa uu soo maray iyo maanta meeshu taagan yahay iyo waxa lagu sii socon karayo waxa ay tahay Jubbaland waa dawlad goboleed ka mid ah dawladda federaalka Soomaaliya xaqa dastuuriga ee lagu kala bixi karaan cid walba waxay ku haysan kartaa in la wada tashado waxa laga hadlayaa doorashada 2020 iyo dariiqay noqonayso heshiis siyaasadeed baa lagu gaari karaa doorasho iyo meesha la aadayo laakiin waan soo dhaafnay anaa idhi xilligii la oran jiray maanta ma taalo anaa idhi iyo raayigana ila qumani anaa jeediyay raayigeedii ma taalo wax kasta oo wada tashi lagala tashan horey waan u sheegnay si ay markaan lagu aasaasay halkan khudbadii Cabdiweli Gaas baa waxay ahayd 80% wadanka dawlad goboleedyada xukuma maanta mid balkiisa lagu burburinayaa yaa lagu ogyahay mas'uuliyadda xagee wax loo wada aan ka wada shaqeynaa waxa danta guuda sida deynta la cafiyo la dagaalanka shabaab kan waxaan horey loo wadi karo aan ka wada shaqeyno dib u heshiisiin wada hadal heshiis siyaasadeed doorashada dhacayso nooca noqonayso garoon aan isku waafaqsanahay inaan waxayno ha laga daayo dadka dhibaatada iyo mushkiladda mar walba soo noqonaysa waxaas leeyahay safarra noo iman doona waan jeedin doonaa positionka aan qabniyo mowqifkayga aad baad u mahadsantihiin idinkana soo dhaweynta waan idinka mahadcelinayaa Soomaaliya maanta kugu sabay meel ku tagi kartaa kuna socon kartaa anaa idhi waqtigeedii waa la soo dhaafay waxaan hadda dhowr qof ay soo weydiinaysay oo tagistayda iyo sababtaan u tagay safar shaqaan u tagay anaana shaqadeed haddana safar shaqaan ka soo noqdo waan ku imi wax kale inta dhaafsan muuno jir propagandaduna meesheeda ma dhaafayso marka waxaan oran lahaa Soomaaliya qof waliba mas'uuliyadda ka saaran ha ogaado in biri lagu la xisaabtamayo taani saaran waa lagu la xisaabtamaya tan ninka kale iga sareeya ama mas'uulka federaalka saaran waa lagu xisaabtamaya hadii la hayda aan isku duubnaano midnimadeenu inaga inoo taala odayaashan kulli waa dadkii shalay Soomaaliya u soo rafaaday soo dhisay nin walibana uu garanayo marxaladii uu soo maray deynaan dib ugu noqonin inaga inoo taala taas aad baad u mahadsantihiin